marka munaasabadan maanta aan joogno waxa weeye munaasabadii maanta oo ay taariikhdu tahay 22kii bishii 2/2022 waxaan joognaa munaasabadii maxay ahayd dhagax dhiga iyo wareejinta iskuulka boodhanka maxay ahayd iskuulkii hore agoomaha oo alla khayr ha siiye maxay ahayd hay'adii iyo Sheekh Maxamed Cali Geedi iyo intii ku soo tabacdayba ay maanta garteen in looga faa'iideysto maxay ahayd dadku ka faa'iideystaan kuna wareejiyaan xukuumadda maxay ahayd wada jir iyo wax qabad boodhankan oo iskuulkan dhismihiisa oo kamid ah maxay tahay ballanqaadyadii madaxweynaha maanta waa maxay tahay la dhagax dhigi doonaa waana la wareejin doonaa kulli hadalka intiisa faahfaahsan waxa oran doona gudoomiyaha waxbarashada degmada sidoo kale wasiir baahiyaha maxay tahay degmada xagga waxbarashada waxa kula wadaagi doonaa gudoomiyaha degmada waxbarashada oo runtii soo wada naaqishnay oo wada eegnay sectorska kala duwan ee baahiyaha maxay tahay waxbarashada degmada waxaan leeyahay soo dhawaada degmada Salaxley insha Allah taala maalinta xigtana wax xigi doonto iyadoo maxay tahay la furayo iskuulkan oo dayactirkiisa iyo hawshiisa oo dhan la soo qiimeeyay iskuulkan waxaanu sameynaa markii hore agoomaha miyiga oo dhan baa loogu talagalay xalaaliyo xamiiga oo dhan agoomahooda ayaa loogu talagalay boorama laga keeni jiray meel walba laga keeni jiray beriga ay ka dhacay dagaalku ka dhacay xaggii miyiga agoomihii beriga xagga dadkoodii halkaa ku dhinteen halkan baanu keennay wax ku barnay qaarna waxaanu geynay xaaxi marka goobtan waxaan ugu talagalnay in agoomaha wax lagu baro kafaaladii agoomuhu way istaagtay oo waxa isbedelay dadkii wax bixin jiray iyo wadamadii isbedel baa ku dhaco waxay noqotay nin waliba inuu ku noqdo gurigiisii oo gurigiisii wax ka samaysto ayay noqotay dabeedna waa la maamuli kari waaye way suurtoobi weyday in agoomihii inaan anagu dacmino aan wax siino inaguna uma jajabnin dad ahaan uma jajabnin camal khayriga ah inaynu jeebka wax ku gurano ayuunbaynu labada ka jecelnay marka iskuulkani wuxuu ahaa dhulkaa weyn waxaan ugu samaynay agoomahan ugu samaynay oo boarding looga dhigo wax lagu dhigo oo laga soo saaro dadna way ka soo baxeen fiican baa ka soo baxay qaar baa joogay imka halka baan filayaa munaasabadan maanta dugsigan hay-addu ay maamulaysa ay dhistay waxaynu maanta doonaynaa inaynu ku wareejino wasaaradda tacliinta wasiirka inaynu ku wareejino guddidan loo sameeyeyna inay haddii ilahay ka dhigo la shaqayso aynu ka wada shaqayno sidii haddii ilahay ka dhigo dugsigani wuu noqon lahaa dugsi boardinga oo caruurta wax loogu dhigo waliba khaasatan dadka miyiga wax loogu dhigo wixii magaaladii waxay ka iyagu magaaladu ay tegi doonaan way ku dhigan doonaan laakiin dadka boardingka ka yimaada tuulayaasha in laga keeno waliba kuwa quraanka bartay oo kale in la keeno dabeedna halka wax lagu baro muddo yarba wax lagu bari doonaa insha Allah barnaamijkan uu samayn doono marka waxaan jeclay wasiirka inaan ku wareejiyo macallin wasiir dugsigii iga guddoon maanta waana ka wada shaqaynayna haddii ilahay ka dhigo insha Allah khayr badana way kugu ogi adigoon kugu wareejiyey laakiin cid kale maanta kuma wareejiyeen sababtaan kugu wareejiyey wax kale maaha waxaan ku ogey laxajaalaan ku ogey wasiirka waxaashaala diin baan ku ogey laxashaala wadan baan ku ogey laakiin hadda nin kale ahaan lahayd wallahi inaan kugu wareejiyeen maanta بارك الله هذه أضل ما صنتي وأنا كم شقينا وكم شقينا إن شاء الله مر لبعض وحنا ما هنقينا مانتها شغل محل علي جدي أورنتي دكسيا إن تشوجنو تعب كبدنا كم بقضاء دول كبدنا الرسالة كا كوها بوح برشة هو يقولي بقى إنه ما أنت وزارد وح برشة كوريتشيو رنتي شرف كرامة يشرف في يناط هاي دماتين السجن وحلنا ميسانك حسناتك هذه هاي دي قرن إفريقيا بقى الله يدك الطرق وين الدعينا إن عمل كيسا ونكسن ونوقبتي مر لبعضك وحنات كينيا دكسيجني هراء بورين كاها حرمي وحيابها اللي كيتشكو كيما أما واحد ما حكم ذاها وحكرنا بحذي قيبتي كوميونيتي عم بديجا كي جارودي ورنتي حكومة دي كل مركز على طلبة دي كوني توانكي
ayaa ay qaateen go-aan ah in iyagu full responsibility ay yeeshaan oo ay ka saaraan qaybtii community-ga ama ururkii gaaroodi dadaallo badan oon samaynay oo aan isku daynay inaan iskuulkii dib u soo celinno may suuroobin iskuulkaa waa la siyaasadeeyey maanta bage cusub baa furmay bagekaa maanta waxaan leeyahay qof walba reer salaxleyow aynu ka wada shaqayno xogta waxbarashada degmada salaxley wasiir haddii aan kaa siiyo xog degmada salaxley waxaa ka furan 19 iskuul oo hoose dhexe iyo 1 dugsi sare iyo 1 dugsi oo waxbarashada dadban ah waxaa ka howlgala 95 macallin oo 55 ka mid ay gunaysan yihiin 40 ka midna aanay gunaysnayn dhammaan xaaladda waxbarashada degmada salaxley si habsamee u soconaysaa marka laga reebo dhowr meelood oo caqabado ka jiraan oo ay ka mid yihiin uu ka mid ahaa kow ka ahaa boodhankani oo halbowlo ahaa wax dugsiyadaasi dhammaan way furan yihiin marka laga reebo 1 dugsi oo xidhan dugsiga hunduli wuu xidhan yahay wuxuu xidhan yahay muddo 12 bilood ah duruufuhu xidhan yahay waxaa ka mid ah macallin la'aan waxaa joogay wuxuu ka xidhmay arday 60 arday ah waxaa ka dhisan 2 fasal iyo xafiis 2 macallin baa ka howlgeli jiray labadaa macallin markii ay muddo dheer howlgelayeen ay gunadii waayeen waa uu xidhmay dugsigaasi midna wasiir waxaan kaa rajaynayaa boodhanka salaxley haddii uu furmo inuu dugsigaasina asagana aad nagala howlgeli doonto dugsi kale oo la yidhaha balacase macallimiin tembareeri aanu geynay mar hore u xidhmay hadda wuu furan yahay macallimiin baa si tembareeriya uga shaqeeya aanu lacagtooda kolba meel communitiga uga soo qaadno isaguna si aanu mar labaad inooga xidhmin dugsigaasna waxaan rajaynaynaa inuu mar labaad isaguna si aanu u xidhmin si loo furo aad baan u rajaynaya wasiir shaqaalaha waxbarashada degmada salaxley oo isku dhow shaqaala marka la isku daro waashmaaniin macallimiin iyo nadiifisooyin shaqaalaha bulaagunada ee waxbarashada degmada salaxley ee aan guna qaadanin waa 73 iyagana waxaan rajaynayaa inaad wasiir wax badan nagala qaban doonto si loo helo waxbarasho hufan goobtan inoo la wareegay maxaan ku dhahaayay maxadkii agoomaha oo dawladdu ay la wareegtay oo la doonayo in laga dhigo boardingkii salaxley oo isugu jiray iyo maxadkii labadii oo isqaabilsan runtii halkan hadda aynu taagannahay marka la soo galo waa goob aad u weyn oo siday u samaysan tahay iyo intay leeg tahay ay yar tahay meelo degmooyin ka samaysan tahay haddana siday u fool xun tahay iyo sida looga guuray iyo si aqalku u dunsan yihiin markaad eegto runtii waxay naga muuqanaysaa haddaynu nahay dadka deegaankan foolxumadeenna iyo waxbarasho nacabaanteenna iyo inaynaan runtii dee qiimaha waxbarashadu intay leeg tahay aynaan leekaysiin ayaa muuqata waayo haddii agoomihii ay istaageen oo maxaan ku dhahay dacmigii dabadda uu iska taagay runtii dee waxa weeyaan ummaddan baynu in si kale looga faa'iidaysta ayay ahayd hase yeeshee si kale ahaatee maanta waxaa timi xilligeedii dowlad fiican baa inoo dhalatay maaragtay dadka danihiisa ka shaqaynaysa iyadana waxaan leeyahay ha barakeeyo waxa uu caqli ina siinaya dad islaama baynu nahay dad manhaj qura baynu nahay in aynu diinteenna iyo maadigeenna mid iskaga dhigno aynu wada baranno maaha laba kala aha sheekheenna oo suurtageliyey in iskuulkii salaxley ee dayacnaa noloshii dhallinyaradii ardaydii ku noolayd aan dee ka warhayaan ogaasay ahayd iyo dayaca ka muuqday iskuulka aakhirkiina xidhmay in loo helo iskuul iyo goob uga wanaagsan dhallinyarada deegaanka iskuulkanu noqon maayo iskuul salaxley oo keliya ku kooban waa iskuul deegaanka oo dhan loogu talagalay ilaahay hakaa jisaa siiye baan leeyahay sheekha reer salaxley waxaan malaynaya dardaaran badan uma baahna intii la dardaarayay waa la dardaaray waxa ka maqnaana waxay ahayd uun adeegii bulsho ee xukuumadaha laga rabay marka waxa hakraduman anigu qabay ama ay tahay xukuumadii hore maanta laakiin isbeddel ka yimi hordhiciisa waad aragtaan waa kaa waxaa muhiima uun inaad ka faa'iidaysataan waxqabadka ama political programkii xisbiga wadani ayuu iskuulkani ka mid ahaa in 100 cishee hore dib loo furo maadaama intii xukuumaddii hore ay gacanta ku haysay uu xurmay tii baan u soconnaa wasiirku nagu hogaaminayaa insha allahu bidmillaahi kariim dibna u xurmi doono hadduu ilaahay yidhaahdo munaasabaddan ballaadhani maanta 2 munaasabadood bay isugu jirtaa midi waxa weeye in sheekheenna ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiya miisaanka culus ha ugu dara isaga iyo guddidiisa gacanta ku haysay
maanta uu ku wareejinayo wasaaradda waxbarashada ama xukuumaddaba dugsiga intaa leeg waxaan markhaati ka ahay oo sheekha markhaati uga ahay inuu dhowr jeer diiday inuu wareejiyo maanta nasiib wanaag wuxuu ku wareejiyey wasaaradda waxbarashada sheekha aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad haydinka siiya adigiyo guddidii gacanta ku haysayba mar haddaadna soo gaadhsiisayna ha ka warwarin inuu dib u xidhmo ama uu dib u dayacmo munaasabadda labaad waxa weeye waa dayactir weeye insha allahu bidmillaahi kariim wasiirkaan u dhaafi doona hadduu ilaahay idhaahdo waxaan aad ugu mahadnaqayaa sheekh maxamed cali geedi runtii iyo hay-addiisa oo somalilan waxay ka qabatay hay-addaasi runtii waxay dowlada qabtaana inta somalilan min bari ilaa galbeed waxqabadka hay-addaas samaysay qof kastaa wuu ka dherigsan yahay oo runtii aan isleeyahay dowlado howlo ay qabtaan iyagoo weliba sektorka waxbarashada xoogga saarayey oo ka shaqaynayay intay iskuulay dhiseen iyo intay howlo qabteen runtii aynu ogsoonnahay maalintii hore aanu dugsiga nimiyaan soo korbeernay runtii anigu aad baan ula yaabay dushaan ka arki jiray laakiin dhulka uu haysto iyo dhismaha ka dhisan iyo sida uu u dayacan yahay markii aan arkay aad baan uga xumaaday waxa ilaahay mahadiiya maanta ilaahay inuu inagu simay in maanta aynu dib hawshiisii loo galo wasaaradda waxbarashaduna ay la wareegto runtii si iskuulkii dib loogu furo inta la dayactiro dib loogu furo weliba boqolka cishe u horeeya ee ballanqaadyadii xukuumadda lagu ballanqaaday inuu ku furmo runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan waxbarashada waxaynu ogsoonnahay waa shay qaaliya xikmad baa jirta la sheego tidhaahdaa haddii aad doonaysa inaad sanad noolaato hal siid beer haddaad doonaysa inaad 10 sano noolaatana geed beer haddaad rabto inaad qarniyo noolaatana dadka waxbar dugsigaasi inuu noqdo dugsi innagu aynu leenahay oo ilaashanno deegaan ahaan aad loo ilaaliyo innagu ka maaragtay waxtarkiisa aynu helno somalilan oo dhanna waxtarkiisa hesho oo boardinkaasi noqdo boardin somalilan oo dhammi timaado inuu noqdo taa inaynu ku dadaallo insha allahu tacaala alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa ilaahay mar labaadkana waxaan u mahad celinaya waxa weeyaan sheekha iyo guddigiisa oo ku gacan adeygay in macadkan aynu maanta iyo iskuulkan boardinka ah inuu shaqeeyo oo jiro oo joogo maantana ay noqotay inaynu kala wareegno sheekha oo mas-uuliyaddii xukuumaddu ay u xil saarayd awalba inay iyadu howlahan mas-uul ka noqoto inaanu maanta xukuumad cusub ahaan oo qorshaha iyagu yahay dee magaca naloo bixiy buu yahay wadajir iyo waxqabad inaanu nahay u soo jeesno ummadda inaanu u qabanno wixii ay xaqa u leeyihiin kiyaalka jooga iyo kii meel kale joogaba waxaan xaq noogu leeyihiin inaanu siino waxbarasho inay helaan goob waxbarasho ay wax ku bartaan inay helaan waxbarasho taya leh in loo maamulo si wanaagsan saddexdaa qaybood bay u kala baxdaa wasaaradda waxbarashadu gebigeeduba marka in halka maanta la dhagax dhigo oo macadkaa iyo iskuulkaa isku jira ee diinigaa la habeeyo oo la dhagax dhigo lagana shaqeeyo sidii u soo saari lahaa arday taya leh oo markaa isla markaana maamulkaasna laga wada shaqeeyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii ujeeddadeeda ugu weyn waxa weeyaan sidii aanu waxbarashada aanu u xil saaranahay anu gaar ahaan inaanu u gaadhsiin lahayn goob kasta iyo meel kasta iyo degaan kasta meel kasoo baahiyay ka jirto inaanu gaadhsiino arrin macadkan ama iskuulkan wuxuu ka mid yahay waxyaalihii ballanqaad ku jiray madaxweynuhu maalintu halka yimi oo ballanqaaday ballanqaadkiina insha allahu kii ugu horreeyay waad naga haysaan kii ugu dambeysay noqon maayo insha allah marka baahiyaha badan ee uu guddoomiyaha waxbarashada ee degmadu sheegayna insha allah wixii laga qaban karo xukuumad cusub baanu nahay waanu ku dadaalaynaa wixii ka qaban karano ka qabanno waanu la eegi doonaa insha allah inaanu eegno